isbeddelka nabadeed ee muqdisho iyo mashaariicda dib u dhiska wadooyinka oo iska kaashadeen dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo dowladda Turkiga waxaa ka dhashay ganacsi ballaaran iyo in dib loogu soo guriyo noqdo magaalada Muqdisho oo ka soo kabanaysa dagaalo wajiye badan lahaa. magaalada ayaa laga dareemayaa mashquul aad u ballaaran oo ka kooban ganacsi, maalgashi iyo dib u dhis guud iyo mid gaar ah. mashquulka iyo ciriiriga wadooyinka magaalada ayaa waxaa ka dhasha shilal maalinle ah oo gawaarida isticmaasho wadooyinka iyagu ay ku galaan. shilalka waxaa ku badan dhalinyarada xanaqaadkoodii uu ku soo aaday xilligii burburka kuna barbaaray nidaam la'aanta, kuwaasi oo hadda tiro badan oo ka mid ah ay kaxeeyeen gaadiidka dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay. shilkan wuxuu ka mid yahay shilalka maalinlaha ee ka dhaca Muqdisho oo inta badan loo aaneeyo in xirfadda wadista gaadiidka ay ku yar tahay darawallada kaxeeya gaadiidka. shilkii la yaabka badnaa oo ka dhacay baarlamaanka agtiisa waa masaajidka isbahaysiga iyo baarlamaanka inta dhacaysa baabuur si xun loo soo raray oo dekedda ka soo baxay ayaa wuxuu ka soo fuulay wadada 12 Oktoobar isagoo u socda xagga sayidka. markii uu marayay lasinaadka baarlamaanka ayaa culayskii dalcad way meesha culayskaa gadaal u leecay baabuurka wuxuu u istaagay sidaan inka daawanayno sida hadda aad arkaysiin waa shilkii ugu cajaa'ibka badnaa. sidan oo kale markay dhacdo waxaa lagu wareejiyaa xafiiska guddiga xalka gaarista shilalka ee taliska nabadgelyada ilaalada wadooyinka Muqdisho. waxaan la kulannay shil gaari oo ay galeen laba wiil oo dhalinyaro ah oo kala kaxaynayay bajaajta amaba tugtugta iyo gaari nuuca hoomiga. guddiga xalka gaarista shilalka taliska nabadgelyada ilaalada wadooyinka Muqdisho ayaan arrimahaasi kala sheekaysanay xilli ay ku mashquulsanaayeen. waxaad arkaysaan hadda leen cas oo halkaa dhex mara mataqaanaa oo kala qaybiyihii waddada ah. nin walba wuxuu leeyahay waddadan wuxuu ku leeyahay 5 mitir iyo 75 sentimitir buu leeyahay. hadda waxaa ku cad meeshaan in baabuurka caasiga ah uu jidkiisii inta u dhaxaysa waad arkaysaa marshabeedigii iyo baabuurkii waddadan buu marayaa. kana waddadan u maraya waa isdhaafayaan waa bidix iyo midig bidix macnaa wadda labada dhinac loo maro weeyaan saas loo maro. marka waddadan dhinacaan nin walba sayidkeennu waa midig, baabuurkana in midigtaan maruu leeyahay, bajaajkuna inuu midigtaan maruu leeyahay. nin walba midigtiisu waa taa khaydkaa cas ninkii dhinacaa ka maro hadduu ninkani dhinacan ka maro sayidkii ninkan buu galay, hadduu kani dhinacan uu jidkaan dhex galana jidkaan ninkan uu dhex galay buu iska maray. saasaa loogu kala qeexay. hadda waxa ku cad baabuurkani inuu diilintii gaduudnayd oo dhinacan ka soo maray baabuurka caasiga. gaarigan waa caasigii mootadiina waa tan. waxaad arkaysaan diilintii inay dhinac ku jiro mataqaanaa waddadii dhinacan bajaajka u lahaa uu dhex maray. sidaa darteed ayuu ninkaas aanu ku xukunay inuu leeyahay gardaradii jidka uu ku xadgudbay waddo uunu lahaa inuu galo. jenaraal cali barre xirsi cali gaab taliyaha ilaalada wadooyinka nabadgelyada gobolka Banaadir ayaa dhanka kala sheegay in talisku uu xil ballaaran iska saarayo maalmaha munaasabadda Ciidul Adha oo mashquul dheeri ah laga dareemo wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho. waxa uu sheegay in taa ay dheer tahay mashquul iyana ku yimaada xeebta liida oo loo tamashla tago iyo goobaha cibaadaadka sida masaajidda. taraafika inta dadkaas ciidaysanayo baabuurtaas iyo kan oo jaamkaas uu sii badan yahay weliba goobo cusub ayaa soo kordha. Maka Mukarrama waxaa ka daraata liido meel meeshaan xeebta liido ayaa Maka Mukarrama ka daraata. sidoo kale masaajidda salaada lagu dukanayo oo salaada loo aadayo gaadiidka tirada badan ayagana noocaas oo kale ayay qaabkooda saas waa. marka saddexda maalmood waxaad u saddexdaas maalmood anaga waxayna u gacan tahay wax kale ilaahay ha noogu daro buugga oo xisaabaadka aakhiro oo ajirka. marka isgoysyada iyo nidaam cusub iyo askarta inaad kordhisaan iyo xil badan aad saari doontaan. qasab waa inaan kor taagnaano dadka mas-uuliyiinta in saraakiisha loo qaybiyo goobaha ciidamadu joogaan oo saraakiisha ay la joogaan askarta si loo dhiirigeliyo. Muqdisho ayaa haatan isu diyaarinaysa u dabaaldegista munaasabadda Ciidul Adha oo sida muuqata dadku ay ku ciidayaan si ka duwan munaasabadihii hore. Awiis Xasan Maxamed, Somali News TV, Muqdisho.